qiso qaali ah oo mudan in lagu tusaale qaato. Waxa uu ahaa wiil faqiir ah, waxa uuna iibin jiray badeecooyin yaryar xilliga uu sii socday iskuulka si uu halkaa uga helo nolol maalmeed yar. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday wiilkii faqiirka ahaa in uu dareemo baahi aad u daran isaga oo sii socday iskuulkii uu dhigan jiray, isla markaana lacag oo dhan waxa uu ka haystay 1 shilin oo aan waxba lagu iibsan karin. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu go'aansaday guriga ugu soo horeeya ee uu arko in uu weydiisto wax uu cuno. Nasiib wanaag, guriga ugu soo horeeyay ee uu arkay waxaa albaabka ka furtay qof dumar ahayd oo da'yar misana aad u naxariis badneed. Waxaase dhacday, wiilkii faqiirka ahaa halkii uu ka weydiisan lahaa wax uu cuno, wuxuu weydiistay biyo uu cabo, waayo waxa uu la weeraray baahidii haysay. Balse qofkii dumarka ahayd waxay aragtay wiilkan inuu aad u gaajaysan yahay, sidaa awgeed waxay u keentay koob weyn oo caano ka buuxa halkii ay u keeni lahayd biyo uu cabo. Wiilkii faqiirka ahaa caanihii ayuu si degan u cabay, kadibna waxa uu weydiiyey qofkii dumarka ahayd ee caanaha siisay, imise ayaad igaga baahan tahay koobkan caanaha ee aad siisay? Kadibna waxay ugu jawaabtay, ma jiro wax aan kugu leeyahay, waayo hooyo waxayna bartay in aan marnaba aqbalin in aan iibsano naxariis qof aad u gashay. Intaa kadib, wiilka miskiinka ahaa waxa uu ku yidhi, haddaba iga guddoon mahadnaq kaaga yimid xagga niyadda. Muddo sanooyin ah kadib, waxaa dhacday haweeneydii dhallinyarada ahayd in uu ku dhacay xanuun aad u daran. Nasiib darro, dhaqaatiirtii joogtay magaalada ay deganeed waxa ay ku guuldareysteen in ay daawo u helaan cudurkii hayay. Ugu dambeyntiina waxa ay go'aansadeen in ay u gudbiyaan magaalo weyn oo ay ku sheegeen inuu joogay dhakhtar si khaas ah ugu takhasusay cudurkii hayay qofkii dumarka ahayd. Dadaal badan kadib, Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qadaray in lagu guuleysto in la badbaadiyo qofkii dumarka ahayd. Ugu dambeyntii, xafiiskii maalgelinaya qarashkii ku baxay daaweyntii waxa ay waraaq lacagta lagu bixiyo u direen dhakhtarkii sida qaaska ah loogu qabtay gabadhii xanuunsaneed si uu u ansixiyo qarashka uu qaadan lahaa. Dhakhtarkii markii uu arkay warqaddii, si wanaagsan ayuu u eegay, kadibna dhanka kale ayuu u gediyey. Qoraal yar ayuuna ku qoray warqaddii, kadibna waxa uu dib ugu soo celiyey xafiiskii u soo diray. Dhanka kale, qofkii dumarka ahayd waxaa iyadana loo diray qarashkii ku baxay daaweynteedii. Run ahaantii aad ayay ugu walwalsaneed in ay furto warqadda, waayo waxa ay ahayd qof aan waxba haysan. Sidaa awgeed, waxa ay dareemaysay qarashka ku baxay inuu ahaa mid aad u badan oo laga yaabo in ay bixiso nolosheeda inta ka dhiman. Ugu dambeyntii, waxa ay go'aansatay in ay furto warqaddii, balse waxaa dareenkeeda si weyn u soo jiitay qoraal yar oo ku qornaa warqadda dhankeeda kale. Waxa uuna u qornaa sidaan: si dhammaystiran ayaa loo bixiyay qarashkii kugu baxay, waxaana lagu bixiyay 1 koob oo caano ah. Waxaana warqadda ku saxiixnaa Dr. Xasan Amiin, oo ahaa wiilkii miskiinka ahaa oo ay sanooyin ka hor siisay koob caano ah isaga oo baahi la liita. Markii ay intaa aragtay, indhaheeda ilin ayaa ka soo daatay, waayo marnaba ma aysan filanayn naxariistii yareed ee ay samaysay in ay mar uun badbaadin doonto iyadoo u baahan caawinaad. Dhammaad, nuxurka qisada waxa uu yahay in aan noqono ummad wax sadaqaysata, waayo waxaa la yidhi, ruuxii ixsaankiisu bato walaalihiis ayaa badan doono. Haddaba isku day in aad noqoto ruux abaalgala. Waxaa xaqiiq ah mar uun in lagu abaalgudi doono adigoo filanayn, weliba u baahan in lagu caawiyo. Ugu dambeyntii, intii aan saxay, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa i waafajiyey, intii aan khaldana shaydaan xaggiisa ayay ka ahaatay. Waxaan Allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa in uu naga dhigo ummad isjecel oo isku naxariista, oo keeda wax haysta u caawiyo keeda liita, maalinta aakhirana ku kulma jannatul firdaws al-a'laa insha Allah. Amiin.